كاغا كوبي سغاشن كي markii أو dhulkii burburay yaman baa xafiis uga furtay muxuu ahaa Sanca oo markaa moodayay sidayna Soomaaliyeed rabaan markii hore wax ku akhriyeen moogtay oo arinta batroolka ay hadlaysay Umar Carte shirkadu markii ba isma samaystay la yiraahdo batroolka waqooyiga in Cabdiraxmaan Tuur laftigeedu yadnaba jiraadka batroolka waxa lagu soo qoray 3 isagoo heshiis la galay batroola marka kulli arintan batroolku lug bay ku lahayd damcigoodana ah inay waqooyiga oo dhan hantiyaan si ay ceelasha batroolka u muuqabsadaan iyagoo markaa aan fahamsanayn in Soomaaliya oo dhanba batrool ku wada jiro khayraadka Soomaalina ay wada leedahay oo marna iyaguna ayna ka qadaynin wax ka soo Soomaaliya ay leedahay laakiin waxaan u maleynayaa qaar ku damci gaar inuu galay in batroolka qabsadaan waxyaalo badan oo ku ifinay inuu jira maanta laftigeedana waxa ugu weyn markasta ku hamiyaan waa batrool laba soo qabsan lahayd maanta waqtiga aad nagu yar hal su'aal baan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa tiri May 18keeda gobolada SC waxa looga yaqaan maalinta qashin nadiifinta ma qashin nadiifintu bay ku eg tahay mise maalintaas waxay maalin u baahan in dadka la tacliiqiyo oo laga sheekeeyo taariikhda gumeysiga taariikhda dhabta ah ee Soomaalida ah iyo ulijeedada gaarka ah halkii xaqin oo lagu mashquuli lahaa saashu ugu dambeeysan ku siiyo Rashid walaal Cabdullaahi horta waa runta maalintaas 18 May anagu waa ka faa'iidnayo waa maalintii qashinka sida daraadeedna maanta qashinka waxa noo dheerba shirkii Khaatuma ka wuxuu ka socdaa magaalada Taleex odaygii Cali Khalifa ah professor Kenya ahana ilaa iyo gobolada Khaatuma meel kasta uu soo maray oo wuxuu maanta la doonayaa shacbiga Khaatimo inay isugu tagaan magaalada Taleex oo wax allaale kii ka guri kara buuhood la qashinka iyo kii Taleex ka guri kara iyo kii laascaanood dan ka guri karaaba maanta waa loo baahan yahay in ay u soo banbaxaan shacbiga Khaatimo inay isnadiifiyaan isla markaana gacantaana qashinka ku guraan gacanta kalena shirka Khaatimo ka qayb galaan okay Yaasin gunaadka maxaa oran lahayd waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliyeed waxa weeye waa dad walaala midnimada in la ilaasho dadkan ayaan la wareerin lagana dhigin dad aan kala goy kara dadkan ma kala goy karaan waa dad waxiso waa dad ehela waa hal xaafid wi اوكي هذه ayaad u mahadsantihiin dhamaantiin dadka igala qayb qaatay barnaamijkan sidaan hore idinku sheegay waxa igu marti ahaa Xamid Maasheeye sidaas oo kale waxa gobolkan hadda marti noogu ah Rashid Diiriye Faarax oo isaguna ka yimid Imaaraadka oo gobolkan Minnesota marti noogu ah iyo Yaasiin Ducaale oo isagu ah qoraa shabakada galgala barnaamijkan waxa isugu kiisoo dibirday ama wareysigan idin qaaday anigoo Axmed Laariya intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo